Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. muddo 6 sano ayaa ka soo wareegtay markay isguursadeen Maxamed iyo Mulki. Wax caruur ahna iskuma aysan dhalin. habeenada ka mid ah iyagoo is-agjiifa ayay sheekaysteen. Waxay isweydiiyeen iyagoo cod hoose ku hadlaya sababta ay ilmo u heli laayihiin. Sheekadii ayaa ka dheeraatay waxayna isku beddeshay buuq. Ugu dambeyntii waxaa lagu heshiiyey in beri dhakhtar la aado si ay u ogaadaan dhibka dhanka uu ka jiro. iyagoo qofna aan u sheegin ayay subaxii dhakhtarkii aadeen. baaritaanka kadib Maxamed ayaa waxa uu soo galay dhakhtarkii si uu natiijada baaritaanka ugu sheego. dhakhtarkii waxa uu Maxamed tusay natiijada baaritaanka taasoo ahayd in Maxamed caafimaad ahaan fiican yahay balse ay Mulki qabto xanuun isla markaana ay suurtagal ahayn inay uur qaado sida uu dhakhtarka sheegay. wuxuuna intaa ku daray in aan rajo laga qabin inay ka bogsato xanuunkaasi. Haddaba intaan u gudagelin fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar gabalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hele barnaamijyadeena. Hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. Mahadsanid. Maxamed markii uu natiijada arkay wuu murugooday saas oo ay tahayna haddana wuxuu ku shukriyay Allah. dhakhtarkii ayuu u sheegay inuu xaaskiisa u waco si ay gudaha u soo gasho laakiin wuxuu ka codsaday inuu dhakhtarka u sheego inay Mulki aysan wax xanuun ah qabin dhibkana uu yahay dhankiisa. dhakhtarkii arrintan inuu sameeyo waa uu diiday. Maxamedna waa uu ku adkaystay ilaa ugu dambeyntii dhakhtarkii ka ogolaaday. waxaa loo yeeray Mulki. markii ay gudaha soo gasho waxaa loo sheegay inuu xanuunka qabo saygeeda kaas oo aan la rajaynayn inuu ka bogsado isla mar ahaantaana ay suurtagal ahayn inay ilmo dhalaan balse ay iyadu fiican tahay. Maxamed markii uu maqlay warka dhakhtarka wuu aamusay wuxuuna fiiriyey Mulki isagoo wejigiisa ka muuqato sida qof quustay oo kale. dhammaanihii waxay ku laabteen gurigooda. arrintii ka soo baxda baaritaankii labadooda waxay si tartiib ah ugu fiday dariskooda, qaraabadooda iyo saaxiibadood. noloshii ayay sii wateen iyagoo u dulqaadanaya balse markii ay 5 sano ka soo wareegtay xilligii baaritaanka ayay sameeyeen. Mulki ayaa u dulqaadan weysay waxayna u timid Maxamed si ay ugu sheegto go'aankeeda. waxayna ku tiri sida tan: Maxamed, aniga iyo adiga waxaan isqabnaa muddo 11 sano ah ilaa intaasna wax caruur ah ma aanan helin. aniga weligay kuguma aan soo hadal qaadin furiin balse qoyskayga iyo saaxiibadayba way igula taliyeen in badan inaan furiin ku weydiisto. anna kama yeelin sidaas anigoo og inaad badhalays tahay. laakiin markaan waxay u muuqataa intaas ka badan inaan sabri karin. fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad iska kay furto si aan u guursado nin kale oo aan u helo ubad aan indhahayga ku duugsado. Maxamed markii uu maqlay hadalka Mulki kuma uusan farxin. wuxuu ku yidhi in arrintan ay amar alla tahay loona baahan yahay in lagu sabro sooma ogid isagoo intaas u raaciyey inay muddo kala siiso laga yaabee inay wax isbeddelaan. Mulki way ka aqbashay iyadoo u sheegtay inay siisay muddo 1 sano ah oo kaliya. haddii sanadkaas ay wax isbeddeli waayaanna ay kala tegayaan. sidaas ayaa lagu heshiiyey. maalmo yar kadib Mulki way xanuunsatay isbitaal ayaana la seexiyey. xaaladdeeda caafimaadna aad ayay u liidatay. natiijadii baaritaankeeda ka soo baxday waxay noqotay in mid ka mid ah labadeeda kaliyood ay howlgab noqotay. Mulki markii ay ogaatay natiijadeeda waxay la hadashay Maxamed iyadoo dhahaysa sida tan: arrintan oo dhan waxay iigu dhacaysaa dartaa maxaad mar hore iskaga kay furi weysay. anigu waxaan rabaa inaan caruur dhalo. waxaan rabaa inaan ilmahayga arko. hadda haddii aan sidan gablanka ku dhinto ka waran. wuxuu ku yidhi anigu waan baxayaa safar dibadda ayaan u socdaa waana ka xumahay dhibka ku haysta. waxaan rajaynayaa inaad dhowaan bogsan doonto. orod iska bax ayay ku tiri iyadoo xanaaqsan. waan baxayaa ayuu ku yidhi laakiin waxaan u baxayaa inaan raadiyo qofkii likuugu deeqa ayuu ugu jawaabay. balse maalin ka hor maalintii qalliinka ayaa waxaa Mulki u yimid dhakhtarkii wuxuuna u sheegay in la helay kilidii loo gelin lahaa beritana qalliin lagu sameynayo. Mulki waxay soo xusuusatay ninkeedii iyadoo isweydiinayso waa nin nuucay ah adigoo berito qalliin galaya ayuu iska maqan yahay. si kastaba ha ahaatee qalliinkii waa lagu guulaystay. isbuuc kadibna waxaa soo laabtay Maxamed. muddo 11 bilood ah qalliinka kadib Mulki way umushay. waxay iyada iyo Maxamed heleen cunugoodii koowaad. aad ayay ugu farxeen noloshoodiina way isbeddeshay. maalin maalmaha ka mid ah
maxamed wuxuu guriga ku iloobay buug yar oo xusuus qor u ahaa, kaasoo ay ku qornayd sir uu muddo qarinayay. buugga waxa uu ugu dul tagay miiska uu ku quraacday. mulki ayaa aragtay buuggii, way furtay si ay u eegto waxa ku qoran. waxay ku dhowaatay inay suuxdo markii ay aragtay sirta buugga ku qoran ee ku saabsan iyada iyo saygeeda. aad ayay u nacday. isla markiiba waxay wacday maxamed. markii uu yimidna way ilmaysay, wayna raaligelisay. intaa kadib mulki muddo 3 bilood ah ma aysan eegi karin maxamed, wejigiisa, xishood iyo yaxyax dartiis. waayo qofka kelida ugu deeqay qof kale ma uusan ahayn, waa isla saygeeda maxamed. dhakhtarkii ayuu ku sir qarsaday ilaa iyo inta uu ka bogsanayeyna qol dhakhtarka keliya uu og yahay ayuu ku jiray, iyadoona waxa uu ugu sheekeeyey inuu safar gelayo. waxaana intaa inoogu eg barnaamijkeennii oo ay idiin soo gudbinayay anigoo ah Cabduuli Macalin Maalta. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay rukuma channelkeena Hogan 24 Media, adigoo subscribe-na saaraya gambaleelkana furanaya si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino channelkeena. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.